marka dadkiiba isyaro buursaday dad baa marka ku dhaawacmay ilaahay waxaan uga baryayaa dadka dhaawacmay ee labada ah ee la sheegayo runtii aad baan idin salaamayaa ilaahayna waxaan kaga baryayaa inuu idin boogadhayo halkan waa isgoyska kiiloomitir 4 magaalada Muqdisho waxa ay maanta Muqdisho martigelinaysa wacyigelin uu qabanay Sheekh Maxamed Ibraahim Kenyawi taas oo ku aadan ama ciwaankeedu uu ahaa walaalka cafi waxa uu soo daawasho tagay ama soo doontay inay dhageystaan wacyigelintaas ku aadan walaalka cafi ee Sheekh Ibraahim Kenyawi uu ku qabanayo Muqdisho kumanaan shacabka Soomaaliyeed ah waxa uu hoolka sahal uu martigelin waayay ama uu qaadi waayay xadiga dadka u imaashin tagay muxaadarada maanta madashu ahaa in lagu qabto xarunta hoolka sahal ee magaalada Muqdisho waxa ka dhashay isbuurashadii dhaawac halka dadku ay sheegayaan inay jirto dhimasho shacabka reer Muqdisho ayaa iyagu wixii ka dambeeyay 9kii subaxnimo u yimi inay ka qayb qaataan xafladda ama muxaadaradan laakiin taasi ma aysan dhicin beddelkeeduna dadku waxay sameeyeen isbuurasho ilaa ay kalifteen ciidamada ammaanku ama booliisku ay ridaan rasaas dadku ay ku kala eriyaan rasaastaas ayaa sababtay inay ku dhaawacmaan wax ka badan 3 ruux oo shacab ah halka dadka qaar ay sheegayaan dhimasho inkastoo ay laamaha amnigu aysan ka hadlin shaqaaqadan ka dhacday wacyigelinta Sheekh Maxamed Ibraahim Kenyawi uu ku qabanayay magaalada Muqdisho indheeg waxay qabteen waan arkay waa laba qofood oo dhaawac ah labaduna waa midna rag waa midna waa dumar wiilka waxa uu ka dhaawacmay qaybta sare ee dhegta ah ay xabadu ugu dhacday halka gabadhu ay ugu dhacday qaybta garabka ay ugu dhacday rasaastaas marka halkee ka dhacday gudaha ay ka dhacday qaybta ganjeelka weynka ah ee laga galo hoolka sahal service ay ka dhacday iridiisa banaanka ah markii isbuurasho fara badan ay dhacday askarta ilaalada hotelka askar ciidamada waa askarta ilaalada u ah hoolka sahal service qaybta sare ganjeelka ay soo koreen kadib halkaas ay xabadaha ka tuurayeen oo dadka ay ku kala eriyeen saddexdaas waa mid oo ah labada wiilka iyo gabadha oo dhaawac ah dadkii dhaawacmay gurmud ku aadan markii dambe ayaa la tacaalay oo dadku ayaa soo qaaday markii cabaar kadib wuxuu aad u batay rasaasta inta maxaa keenay waxa keentay isbuurasho iyo ganjeelka oo la isku dayay dadku shacabka inay awood u ku galaan adima kamid ah dadka gudaha galay ayaa kamid ahaa balse iimayso suurtagelin inaan gudahan u gudbo ganjeelka weyn ee dadka lagu celinaya ayaa qayb ka ah dadka taagnaa bal qiyaas dadka aan Muqdisho joogin ee raba inay ogaadaan inta dad maanta ka soo qayb gashay iyo jawiga inta rasaasta aysan dhicin waxa ka dareemayska halka uu jirto kilomitir 4 ilaa iyo hoolka waxa isku jiraan ku dhawaad intaas oo kilomitir ushii la tuura meel banaana kuma aysan dhicin waxa jirta inta gudaha ku jirtay inta banaanka jirta inta banaanka joogtay inay badan tahay oo aad dadku waxa maaday khudbadii aan ii suurtagelin ma ii suurtagelin gudaha u gudbo dad baa iga sii horeeyay oo gudaha galayba labadii saacba oo hoolku u buuxsamaaday dadku qaarkood igu dhaayeen tirada dhaawaca KNN ay xaqiijisay ayaa waxay gaaraysaa 3 ruux oo ay dumar ku jiraan halka dhimashadu ay tahay 2 ruux inkastoo aanan wali la xaqiijin ciidamada ammaanku waxay isku dayayaan inay xakameeyaan dadkan iyagu isku dayaya inay gudaha si diqiya ku galaan inkastoo aanay suuragal noqon doonin in qori ama ciidanku ay ciliyaan shacabka maadaama ay aad u tiro badan yihiin saraakiisha ciidamada ammaanka ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in gabi ahaanba ay baaqatay muxaadaradii maanta lagu madalsanaa waxaana la sheegay in la qaban doono maalinta Jimcaha meel sidan kaga daawasho dagaan ama dhammaan dadku ay kaga qayb gali karaan
oo loo asteeyay inay noqoto xarunta kubadda cagta ee Stadio Konis ama Stadio Muqdisho ee magaalada Muqdisho. marka dadkii baa isyaro buursaday dad baa marka ku dhaawacmay ilaahay waxaan uga baryayaa dadka dhaawacmay ee labada ah ee la sheegayo runtii aad baan idin salaamaya ilaahayna waxaan kaga baryayaa inuu idin boogadhayo waxaana dadweynaha yaqaana waana booqan doonaa biidin ilaahi tacaala meel walbo ay joogaan in wax walbo gabdhaha loo qaban karo booqasho haday noqoto hadii dhiirgelin ay noqoto hadii duca ay noqoto iyo hadii xataa maaragtay waa dad dhaawacmay maaragtay si walbo lagu caawin karana waa codsanaya aad iyo aad baan idin salaamaya ilaahayna waa idin soo baryaaya gabdhaha dhaawacmay aadna waa idin jecelahay runtii qalbigayga idinla jira weligeena idinla jiri doona ilaahayna ruuxul qudus idinku xoojiyo hana idin boogadhayo aad bad Soomaali meel walba ay joogto aad baan u salaamaya